qaar ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiyada sare ee Salaama gaar ahaan qaybta inamada ayaa ka hadlay dhacdadii maalintii shalay ka dhacday dugsigaasi. Ardaydana warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay si faahfaahsan uga warameen habka ay dhacdadaasi u dhacday iyagoo fariin u diray ardayda kale ee dugsiyada Salaama dhigtay. Awaamirta wasaaraddu soo saartay ayaan qodobada u taaban doonaa. Ay ugu horeysay in ardaydu ay dibadda u baxdo lagaga soo musaaciyo. Taasina waxay noqonaysaa qalalaasa kale oo waayo ardaydii lama maamuli karo. waxay noqonaysaa in dib loo xaadiriyo ardayda waayo arday iyagu ismaamulay ma aha marka ardaygii la yiraahdo dibadda wax ka soconaysa waxa laga yaabaa inaanu soo noqonba qodob kale jiray artaanu waxaanu in ardayda Salaama manhajkan dhiganana oo manhajka haymo wasaaradaanu manhajkeeda dhigana wax bugaago kalena laga qaadana ma jiro iyo wax saayida bishana laga qaadana waa lacagtaas lacag kale saayid oo ay macallimiintu naga qaataan ma jiraan taasina waxay ku sheegaysaa in aanay ardaydu wax allaale iyo wax ay ka kaceen oo dhibaato ah oo haysatay ama taadi ah aanay jirin muddada 4 sano ee Salaama Secondary School aan dhiganayay waxyaalo badan oo aan kala kulmay ayaa jira waxyaalahaas wax allaale iyo wax ardayda lagu dhibayo ama wax qofka lagu yeelayo ama wax cid lagu dhibaateynayo kuma jiraan ruuxaantii markii ardayda la wareystay waxa la yiri maxaa ka cabanaysan ardaydu waxay doonayeen inagu waxay nahay dad social culture dadka loo yaqaano ama dadka waxa kale agagaarku ka dhacaya saameynta ku yeeshaan waxa dhawaanahan cusbaa ardaydu inay isku urursadaan falal aan wanaagsanayn oo ka dhacay dugsiyo kale ardaydaas oo iyaguna jeclaystay inay buuqayar abaabulaan waxay haayeen ardayda Salaama Secondary School waniska waliba arday galaasyo kooban ah ma yahayn arday form 3 ma yahayn arday form 4 sidoo kalena ma yahayn ardaydaasi arday form 2 ah waxay haayeen arday tiro yar oo koobana cid ku raacsanayd iskuulka ama cidaas ku caawinaysay oo ardayda iskuulka kamida ma jirin waxa kamid ah ardaydii foorarka iyagu caawinayay macallimiinta waqtigii la fasaxay ardaydu wax dhib oo xataa anaga nagaga yimid ma jirin oo caafimaad qaba alxamdulillaah rabbil caalamiin wana aniga idin la hadlaya waxaan u baan idin sheegaya fariinta idin soo diray waxa weeyaan in dadku qalad fahano badan ka jireen in dadku ka hadlayeen waxyaalo kala duwan la soo galnay social media in dadku si qaldan u fahmeen laakiin dugsiga sare Salaama Secondary Schools waxaan xoggaal uga ahaa inaan wax dhiba ka jirin inaan macallin iyo cid kale lagu dhibaateyn inaan cidnaba aanay wax dhiba ka soo gaadhin taasna qof kasta oo qofkiisu dhigaynay waa ka warqabaa ardayduna waxun bay ka kaceen waxa ugu weyn ka kaceen waxay haayeen inay iska jeclaysteen inay buuq iyo fawdo bilaabaan balse ma jirin wax kaliya oo ay taageerayeen oo ay doonayaan inay ka hadlaan marka dugsiga sare Salaama Secondary School arday baa jirtay sheeganayay goobta aan ku nuso saacayno iyo nuso saaca iyo maktabad ka hadlayay xubno kalena waxay si u qalad fahmeen ayagoon arinkaba hubsan inay dhibaatooyin badan oo noocaas jiraan hatta balkeer hadlo ardaydu waxay shalay u kacaan iyo wixii ku sabay horta waxa loo aaneynay saddex sababood loo aaneynay midaheed waa fasax midaheed waa nusaac midaheed school distraction ka waxay yiraahdaan waxaanu kamid yahay ardaydii markii ardaydii la fasaxay ardaydii raacday macallimiinta ardaydii la fasaxay waa tanagori maraysa marka ardaydu weydiino war maxaad iskuulkiina u burinaysaa waxaad fasax baan doonaa oo fasaxa waxa xidhay waxa weeyaan waa corona waxa jiray social media waxa socday warfayga ahaa ardayda waxa la fasaxay 3 wiig oo ardaydu fasaxa sirbeen ama waxay doonayeen markay iskuulka buuqiya xabuuraan hal wiig oo la fasaxay rabeen talabaad ay igu laayay waxay ahaayeen waxa doonaa tartanka labaad aan ku jirnaa ordan dhinaca soo nagalaadka waa lagu laayay tartanka labaad mar daba aan arki doono maray soo dhigeen social media soo dhigeen oo doonaan waxaanu jijibinay muxuu ahaa iskuulkii Salaama jijibino harsan al-irshaad iyo ilaa soo harsan aan ka gartay inay ku jireen school distraction ka waxay yiraahdaan aan uga dir doono maamulayaasha inay ka qayb qaataan sidii ardaydana uga qaban lahaayeen saddexaad waa nusaaca waxa jira al-islaam ala shuruudiin baa la yiraahdaa iskuulka markaad soo galayso waxa laga dhigaa saxiix baa laga dhigaa oo ah inaad iskuulka awaamirtiisa qaadanayso yeen kale aad ikhtiyaar u leeyahay qaadato yeen kale waxa ku jirtay inaad iskuulka geedkiisa looga bixin dibadda arrintu nusaaca meesha taalo waxayaan waa laba dhinac baan ka eegi karnaa waa dhinac togan iyo dhinac taban haddii dhinac positive ka aanu ka eegno waxa weeye dhinac positive ardaydaas waqti kale uma macallimiintu ma jiro xisdoogii waqtigii loogu talgalay ku qaadanayaan waxay kale ku qaadanayaan macallinkii laga soo dabaabsay macallinku ka niyajabay ay ku qaadanayaan arki kale aanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa fariiba waxaan u diraa ardaydaan u diraa ardayda waa noma miibsanade inaan jijibino inaan agabka iskuulkana jibino inaan wax kasta jibino
haddaanu saa ku socono waxay ma doonto maalin la odhan doono ardayga wuxuu la mid yahay ardayga xabagalaha halkaas socdu la mid yahay anagoo dee taa ka duulayna oo taasuu muhiimka ah inaan dee arday dhaqan ah lagu tilmaamo magaca lagu tilmaamo aynu soo istaagnay askarigii ugu horreysay yimaada wuxuu yidhi maxaa jajabay samuu odhan siin wuxuu xallin karnaa see wax u dhaceen arrintaana ma weydiin goobjoog baanu ahaa maamulaha arrin khaldan buu ku yidhi waxay ardayda inaad dibadda u soo saartay muu odhanin ardayda maxaa dhacay laakiin isagoo intaasoo dhan ku dhex wareeray oo amnigooda sugayey ayaa haddana maanta isagiina la xidhay ninkaa dalkaa dhan ubaxaa soo saaraya ardayda waxaan leenahay haddii uu maalintii tii nuurdiin dhacday ciqaab ka fulin lahaa tan maantuna may dhacdeen salaama intan yare isbahaysatee boonnada ee wax yaroo aan waxba ahayn ay sameeyeen markaa uu yahay iskuul markaa ardaydu markaa ardaydu ay u hoggaansan tahay sharciga iyo maamulkooda markaa dawladda markaa waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa iyo dhammaan laamaha amniga in markaa wax dhibaato ah oo iskuulka iyo tacaddi ah lagu hayo iyo macallimiintu ay ku hayaan aanay jirin laakiin ardaydu ay yihiin arday markaa iskuulkoodii aan waxyeelin ugu sii dhiiran ardayda Soomaaliland inay falalkan oo kala sii sameeyaan oo kol hadii aan arday la xurayn oo ardaygii sheekadan yar bilaabay loogu sii bumbuuninayo way ku wada dhiiranayaan war subcad xumo ku noqday iskuulkii oo way waxay yiraahdeen waa la gadooday arday baa gadooday gadoodkuna sidoo muuqdo waa markay ardaydu qalabkii iskuulka jajabiso oo gawaaridiisa jajabiso oo macallimiintu waxay yiraahdeen iskuulka adiimka la soo hal meel oo jabnu jirto markaa waxaan ku tarsanayaa warbaahinta madaxa bannaan waxa leeyahay ilmaadeerayaal naga daaya waxaan wararkan sel iyo raadka toon lahayn ee baahinaysan wax walbana ka fiirsada midda labaad ardayda codsi baan u dirayaa war waxaan leeyahay nin lama arag weelka oo wax ku cunu jajabinaya biliis aan dhowrano macallimiinteena iyo dugsiyadeena run ahaantii waan wada arkaynaa ardayda fikirkoodii wixii ay arkeen ka wada dhiibtay wuxuun baan ku darayaa ardaydii baruurta orgiga ka weyn yaana loogu soo gaban waxbarashadeena ay noo qacan qabanayeen ay mustaqbalkayga noo tusayeen ma aha macallimiin aan naga galabsadeen inaan xumaan siino run ahaantii shaqaaqada yara dhacday ma aha shaqaaqa la sheego amba wax weyna la sheego oo tahay wax xiisadihii ugu dambeeyey nagaga lumeeno marka waxaan jecelahay inay waxbarashadeen halkii nooga sii socon doonto ka hadlo wax wanaagsan may ahayn waxa sameeyay mudaharaad badanba ma ahayn arday yar bay ahaayeen oo kooban ardayda waniska ah bay ahaayeen kuridii foorarka hay dhammaan ardayda tiriyada ah iyo tuuyaduba waxay ka talinayeen wanaagga iyo sharafta iskuulka shalay luqmaan maxamed faarax bulsho TV Hargeysa